dad badan ayaa jiro oo fanka kaga sii hajiro kaga sii baxay qaarkooda dhaqaale ay ka sameeyeen qaarna dhaqaalo ay ka raadinayeen bariiskooda ka dhacsanayay ku sheegayaan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودة حبيب ونكسن حقولنا هاي هدي تامرك وريسي صوب وقطو channelka دالبلي 32 سبسكرايب نوصر قنبل الكفرو سياد نقوم من نقطيت داودياشا إنوغو حرن channelka داودو حنكون راعين إنا جمعا ونكسن وهابين جمعا يسي بحيسو سبتنا أيسو أرديسو هاي daawade like noo saar videoga u share garay asxaabtaada arrintan waa muhiim arrin xasaasi weeyaan waxaan ka hadlayno waxaan rabnaa caawa dadweynaha na daabanaya ku xiran bartan YouTube-ka dalbile 32 naga daabanaysaan inaad niisoo gudbino wax badan insha Allah hasa ahaatee waxaad sidoo kale booqan kartaan barta aan ku leenahay Facebook page-keena dalbile 32 ayaa si toos ah u booqan kartaa kadibna noo like garay follow noo dheh insha Allah maasanid ayaan ku raacinaynaa fanaanada YouTuber-ka ah Rasmi Reis ayaan xog niga haynaa haddaba xogta intaan gudaha ka qaadin waxaan rabaa wax walbo aan sheegayno ama aan dadka u tabinayno ama aan dadka u sheegayno waa inaan soo xaqiijinaa si dadweynahana daabanaya aan ugu gudbino wax xaqiiq ah hagaag muddo kadib waxaan soo xaqiijinay Rasmi Reis barta ay ku leedahay Instagram-ka waxaa la sameeyay karaa kuwa fake ah laakiin kani maaha mid fake ah waa mid ayada leedahay waa mid maxay ahayd Rasmi Reis leedahay waa laga yaabaa waxaan isdhahnay intaan soo gudbinin macquul in laga jabsaday waan isweydiinay waxaan isdhahnay ama laga jabsaday bal u kaadi way soo hali lahayd war waa laga heli lahaa waa laga jabsaday waxbay dhihi lahayd page maxay ahayd to Instagram-kooda booqan kartiin Rasmi Reis 601,000 ayaan ku ognaa intaas inay haysato wixii kale oo dheeraad oo soo darsamad ma sheegi karno oo ku soo darsami doono inta ay haysato Rasmi Reis waxay qoraal barteed Instagram-ka ku soo qortay inay ugu horeen ay muslimiinta salaantay assalaamu calaykum waxay cadeysay wa calaykum salaam alleena waxay cadeysay inay iskaga baxday fankii haddaba waa kana qoraalkeeda ayaan halkan ii soo dhignay asigoo screenshot ka soo qaadnay waa kana qoraalkii in yar aqrisada qoraalkeeda Rasmi Reis hagaag waad aqristeen qoraalkii waxaan ii xaqiijinayaa daawadayaal inay fanka iskaga baxday Rasmi Reis maahan markii ugu horeysay ayda ka baxdo fanka dad badan ayaa jiro oo fanka kaga sii hajiro kaga sii baxay qaarkooda dhaqaale ay ka sameeyeen qaarna dhaqaalo ay ka raadinayeen bariiskooda ka dhacsanayay ku sheegayaan oo dad badan oo dhahayeen maxay ahayd fanka waxaan u soo galnay inaan caruurteena ku biilno oo aan ku maxay ahayd anaga nafsadeena ku maareey karno ayaan u soo galnay kulleeyihiin kulley way ka tooba keento walaashay ilaahay mahadi alxamdulillah ilaahay baa mahad iskale waxay cadeysay kulley maxay inay iskaga baxda fanki dad baa waxay u saweey karaan waxaa laga yaabaa Rasmi Reis inay u saweeyaan dhaabicii soo gaaray ayadiyo gabadhii kale iyo maxay ahayd darwalkii baara iyo ayada iyo darwalkii soo gaaray inay dad dhahaan sidaas daraaddeed fanka ugu baxda xanuunka soo gaaray dhahaan laakiin wixii ugu baxday ayada kulley sheegi doonto cadee doonto ama halka hadii ugu gaabsato waa ka hadii video soo duubtay ku cadeyso waan soo gudbi doonaa hadii halka ugu hartan waa ka soo way ugu baxday oo cadeyso laakiin waxay sheegtay in alla dartii fanka kaga baxday oo ilaahay dartii iskaga dhaaftay fankan
mar haddii ka baxday rasmi rays ma jiri doonaan fanaaniin kale kusoo dawfeeli doonaan rasmi rays oo ayagana qudhooda ka bixi doonaan fanka dhaabicii horta rasmi rays markaa in yar taabano dad badan ayaa ka bixiyey waxyaalo badan dhaabac culus waxba ku sheegeen rasmi rays waa dhimatay dad dheheen laakiin ilaahay xamdigii alxamdulilah gabadha way noo sheeg maanta waa gabar xayi ah ilaahay hadiyeysto kolley rasmi rays waxaan leenahay waa ku salaamaya walaashay meel walba waa joogto ku salaamaya nolol waan ku leeyahay ilaahay mahad iskale waa kaaga mahad celinaya kolley qofka fanka markuu ku jiro fanka wuxuu u tabiyaa kolley heesaha uu ka hadlayna waa heeso jacayl ha noqdo heeso wacyiga taagan iminka xaalka hadda jiro taagan ka hadlaya riwaayadaha kusoo gudbiso ama heesahan kusoo gudbiso qofkii waa wuxuu ka hadlaya wacyiga taagan aydusi waxay go'aansatay inay iskaga baxdo fanka waa ogeedeen qaalada iskaga baxday ayadii oo ka sheegtay in fanki iskaga hartay hase ahaatee rasmi rays waxaa leenahay guul barteed instagramka ayay kusoo qortay qoraalkaas daawade xogtaas muhiimka ayaan la wadaagaynay inankan waxaan leenahay janaalka mar haddii soo booqatay oo aad tahay booqashadii kuugu horreysay subscribe inoo saar gambaleelka furo si aad ugu mid noqotid kuwa ku xiran janaalku waxa uu gaari doonaa insha Allah mar dhow heerka ugu wanaagsanaa oo sii socodana hadduu Ilaahay idmo ku xirnaanshahaada waxa ii tilmaamaysaa in aan sii socono marka sii dambayso daawashada anaguna aan sii la socdo walaalkiin Xuseen Maxamuud Xuseen oo niile hadda habeen wanaagsan ku xirnaada bartaan YouTube-ka page-kana booqda dalbile 32 si aad ugu mid noqotid asxaabta ku xiran like dhe follow the page-ka waa ka dalbile 32 waad iga helaysaa page-ka bartaas ayaad igala saaxiibi kartaan insha Allah marka waxaan leenahay roo socda guud ahaan waxaan iga tegayaa dhammaan asxaabta horta commentada soo bixis aad baan waxaan leeyahay u bogaadinayaa commentidooda oo aan hadda rabo inaan halkan maxay ka xuso ma sha Allah dad badan ayaa commentida soo ka soo dhiibtay maxay bogaadiyay Abdullahi wuu ku xiran yahay commentida Abdullahi Maxamed wili uu qoranta commented ka bixiyo kamid yahay ma sha Allah maasinid asxaab kala duwan ayaa hadda xasuusanin عفوا هاي قبلنا كومنتي والبا هذا كدب وحان نعدينيا فيديو والبا عن ضوية كومنتي دو وناكسنا هل كان كشي جدونه هل إلا سيداتك أونا قطو دي دقلين كومنتي والبا داتك وناكسن يسو قرال كان كبهيدونا وعني قلت يا أمانة الله